uray ku soo dhawaada sheekadii saddexda carruurta ahaa. Bari baa meel magaalo ah waxaa ku noolaan jiray 3 carruur ah oo la kala odhan jiray Cali iyo Aamina iyo Lugooye. Cali iyo Aamina waxay ahaayeen carruur aad u maskax badan, wax kastoo ay samaynayaanna 2-3 jeer ayaa ay ka fikiri jireen ka hor inta aanay samayn. Laakiin Lugooye waxa uu ahaa mid ka duwan, waxa uu ahaa mid calool adag oo bilaa daryeel ah. Maalin maalimaha ka mid ah ayaa Cali iyo Aamina waxa u yimid Lugooye, waxaanu ku yidhi, waryaada Cali iyo Aamina, waxa aan moodayay in aynu tegayno beertii geedaha cambaha oo miyaad ilowdeen? Cali ayaa yidhi, haahey, anigu waan ilaaway, laakiin si aynu u gaadhno meeshaas waa in aynu kaynta sii dhex jibaxnaa. Aamina ayaa tidhi, taasoo keliya ma aha, laakiin waxaan maqlay kaynta waxaa jooga xayawaano halis ah oo cabsi badan leh. Anigu ma tagayo, aad baan uga cabsanayaa. Lugooye waxa uu yidhi, wax xayawaan ah iyo wax kala toona ma joogaan, dadku intaa waa ay tagaan, waanay ka soo noqdaan, waa ay sii maraan dariiqa maalin kasta. Cali waxa uu yidhi, anigu waalidkaygu maan sheegin, marka aynu meesha tagno ee ka soo noqonno waxa ay noqonaysaa xilli dambe ee maalin kale inooga dhiga. Lugooye waxa uu ku yidhi, oo waalidkaa miyaad ogeysiisaa wax kastoo aad samaynayso se waayo? Haddii aad fasax weydiisato, kuma ogolaanayaan in aad meel la tagto. Ma rabno in aynu cid ogeysiino, ina Mariya aan tagne degdegna u soo noqonee. Aamina ayaa tidhi, waayahay, waa hagaag, laakiin hal wax baa jira. Haddii wax khatar ahi meesha ka dhaco, waa in aynu qofna qofka tegin, waa in aynu dhammaanteen qof waliba qofka kale caawiyaa. Bal maxay idinla tahay asxaabey? Lugooye ayaa ugu jawaabay, waayahay, waa sax, imika ina Mariya. 3dii carruurta ahaa waxa ay bilaabeen inay u sii socdaalaan xaggii kaynta. Laakiin intii ay sii socdeen, cabsi weyn bay ku jireen. Waayo waxa ay hore u maqli jireen sheekada xayawaanka halista ah ee ku nool kaynta. Markii ay in door ah lugeynayeen, waxa ay maqleen dhawaaq dheer oo naxdin leh. 3doodiibana socodkii ayaa ay joojiyeen, isla mar ahaantaasna bilaabeen inay hareeraha eegaan si ay u gartaan meesha uu dhawaqu ka soo baxayo. Isla mar keliya ayaa ay arkeen madax kuti weyn. Carruurtii waa ay anfariireen, markaasay cagaha wax ka dayeen, waxa aanay ka yaaceen madax kutidii, kadibna isku qariyeen geed u dhowaa. Cali ayaa yidhi, hayaay, waa madax kuti, bal maxaynu samaynaa hadda? Lugooye ayaa ku yidhi, Cali iyo Aamino i caawiya, aan geedka koree. Markaan geedka koro ayaa aan gacanta kor idiin jiidaya si aad idinkuna geedka u soo kortaan. Cali iyo Aamina labadoodiiba Lugooye ayaa ay ka caawiyeen in uu geedka u fadhiisto oo uu koro. Lugooye ayaa ku yidhi carruurtii, geedka boos keliya ayaa ka bannaan oo qof keliya uu fadhiisan karo, markaa xageed rabtaan inaad fadhiisataan idinku? Cali iyo Aamina waxa ay sameeyeen bay garan waayeen. Markii Lugooye uu sidaa ula hadlay, madax kutidiina waabay soo dhawaatay. Cali iyo Aamina aad bay u yaabeen, waxaanay yidhaahdeen, haddii aynu indhaha isku qabanno oo aynu dhulka jiifsanno oo aynu wax dhintay iska dhigno oo aynu indhaha dhaqdhaqaajin weyno, madax kutidu waxba inama yeelayso. Aamina ayaa tidhi, waa runta sida aad sheegaysaa ee sida aan yeello. 2dii carruurta ahaa markiiba dhulka ayay seexdeen, iyagoo aan indhaha dhaqdhaqaajinayn. Madax kutidiina agtooda ayaa ay timid, markaasay kolba mid ursatay. Waxa ay mooday in ay dhinteen, dabadeed meeshii bay iskaga tagtay. Lugooye ayaa wuxuu arkay sida la yaabka leh ee ay u fikireen iyo sida ay uga badbaadeen madax kutidii. Lugooye waxa uu ku yidhi carruurtii, oo hayaay, waryaadaheen, si la yaab leh ayaad uga fakateen madax kutidii, waxaad tihiin kuwa nasiib badan, bahashiina idinmay cunin, waa ayna iskaga kiin tagtay. Cali ayaa ku yidhi, haa, maanta runtii waxaan nahay dad aad u nasiib badan. Lugooye ayaa ku yidhi Aamina, madax kutidu aad bay kuugu soo dhawaatay, ee maxay kuu sheegaysay? Aamina ayaa waxay ku tidhi, waxay igu tidhi butidu waxay ilahayd, hala saaxiibin dadka adigoo kala ah, weligayna dib kuula hadli maayo.
lugooye ayaa carruurtii ku yidhi bal horta i caawiya oo geedka iga soo daadajiya. cali iyo aamina ayaa ku yidhi madax ku tidhi waxa ay noo sheegtay in aanay wax faa'iido ah lahayn in aanu caawino dadka adiga oo kale ah. haddii aad doonaysana inaad soo daadegto geedka ka soo bood. aamina ayaa ku tidhi haddii aad rabtana geedka dushiisa iskaba fadhi, annagu tuuladii baan ku noqonaynaaye. labadii carruurta ahaa kayntiibaa ay iskaga tegeen iyaga oo cadhaysan. lugooyana waa uu sii eegayey intii ay sii socdeen isagoo keligii geedka saaran. carruuray waa inaynu had iyo jeer caawinaa asxaabteenna, laakiin waa in aynaan la saaxiibin kuwa ina khiyaameeya ee beenta inoo sheega. sheekadii masduulaagii iyo tukayaashii. beri hore waxaa jiray geed weyn oo qudhac ah. waxaa ku noolaa 2 tuke. geedka hoostiisa ay ku noolaayeen waxaa ku yaalay god yar. maalin baa waxaa yimid masduulaa aad u khatar badan si uu godka geedka ku yaala ugu noolaado. waxaanu dhibaato ku abuuray tukayaashii. dhowr cisho ka bacdi ayaa tukihii dhadiga ahayd dhashay 3 mid oo beed ah. markii ay 3dii beedka ahaa dilaaceen, 3 tuke oo dhal yaryar ah ayaa ka soo dhex baxay. 3dii tuke ee dhasha ahaa waxa ay ku ciyayeen caw caw si farxad lena waxa ay ugu ciyaarayeen buulkooda yar hareerihiisa. maalin maalmaha ka mid ah ayaa tukihii hooyada ahayd iyo kii aabbaha ahaa buulkii kaga tageen dhashii yaryarayd. meel fog baanay u duuleen si ay cunto ugu raadiyaan. isla markii ay sidaa u duuleenba masduulaagii ayaa godkii ka soo baxay. inta uu soo gurguurtay ayuu geedkii soo koray. isla markiiba weerar ayuu ku soo qaaday dhashii yaryarayd ee tukaha ahaa ee masaakiinta ahaa. markaasuu 3diiba hal u cunay. habeennimadii markii ay yimaadeen tukayaashii hooyada iyo aabbaha ahaa, waxa ay baadhbaadheen buulka hareerihiisa, laakiin dhashoodii waa ay ka waayeen. tukihii hooyada ahayd waxa ay markiiba garatay in uu masduulaagii masiibada ahaa uu cunay dhasheedii. waxa aanay bilowday in ay la waaqlayso oohin aad u xun. tukihii aabbaha ahaa waxa uu isku dayay in uu la taliyo afadiisa. waxaanu u sheegay in aanay tanoo kale dib u dhici doonin. meel fog ayuuna u duulay. waxaanu aad u danaynayay in uu helo fikrad uu ku xalliyo dhibaatadan xun ee ku habsatay. isla waqtigaas boqoraddii ayaa waxa ay timid webiga si ay ugu maydhato. siliskeedii qoorta ee luulka ahaa ayaa ay iska saartay, waxaanay dhigtay meel agteeda ah. dabadeedna waxa ay ku tidhi askarteedii, halkaas istaaga oo siliska ii ilaaliya. tukihii aabbaha ahaa oo meesha duulaya ayaa arkay boqoradda iyo siliskeeda quruxda badan ee meesha yaala. tukihii inta uu degdeg u soo duulay ayaa uu yimid webiga dhinaciisa. markaasuu la booday siliskii. inta uu afkiisa dheer ku qaatay ayaa ula duulay. askartii ayaa inta ay budharhkoodii soo qaateen ayay daba yaaceen tukihii. tukuhu waxa uu ahaa mid aad u maskax badan. waxa uu askartii ula cararay xaggii geedka. markaasuu siliskii ku dhex tuuray godkii masku ku jiray. xilligaas masku waa uu hurday. askartii ayaa waxa ay damceen in ay siliska ka soo saaraan godka iyaga oo isticmaalaya ulahoodii. waxay budharhkii la dhaceen godkii kuna burburiyeen aqalkii masku ku jiray. maskii ayaa inta uu dibadda u soo baxay cabsi weyn ku abuuray askartii. maskii marka uu askartii arkay ayuu baqday. markaasuu cararay, dibna uma uu soo noqon. carruuray, waxa aynu barannay in haddii aynu caqligeenna si wanaagsan u isticmaalno in aynu xal wanaagsan helayno, dhibaatada ina qabsatana si sahlan u furdaamin karayno.
bisada buulkeedii qasnada ahaa. beri hore waxaa jiray guri bangalo ah oo gaboobay. waxaa ku noolayd bisad xukumi jirtay in ka badan 1,000 midh oo jiir ah, taasoo si khaldan u adeegsan jirtay bisadaha kale, ayadoo majara habaabinaysa una isticmaalaysa inay hanti qaaliya u soo ururiyaan. jiirkii marnaba muu jeclaysan wixii ay bisadu samaynaysay, dabadeedna waxay damceen inay bisada cashar u dhigaan. isagoo bisada ka qarinaya ayaa jiir magaciisa la odhan jiray Miyir ayaa jiirar badan isugu yeedhay. waxaanay si qarsoodi ah u sameeyeen khariidad been abuur ah, dabadeedna bisadii ayay u dhiibeen. Miyir ayaa yidhi, eeg, waxaan soo helay khariidadan oo shandad ku jirta oo taalla meesha aynu ku kaydino qaniimadeenna oo dhan. bisadii ayaa tidhi, maxaad ka hadlaysaa? Miyir ayaa yidhi, khariidadan waxa ku yaalla dariiq kuu hogaaminaya oo ku geynaya qasnad qarsoodi ah oo ay macdani ka buuxdo. bisadii ayaa tidhi, ma runbaa? ii dhiib khariidadda. bisadii ayaa maskaxda ka tidhi, tani waxay u eg tahay qasnad heer sare ah, anaa soo qaadanaya oo iska leh. bisadii ayaa tidhi, waa yahay, dhammaantiin hadda iskaga taga meeshan, aniga ayaa maamulaya. bisadii jiirka dhammaantii ayay kala eriday, waxaanay bilowday in ay u dhaqaaqdo xaggii qasnadda macdanta. jiirku way garanayeen bisadu inay waxaa samaynayso, dabadeedna way ka sii horreeyeen iyagoo kolba xagga dambe ka soo eegaya. waxay hubiyeen in uu dariiqa loo marayo noqdo mid dheer si ay bisadu ayadoo daalan u gaadho qasnadda macdanta. markii ay bisadu gaadhay meesha, waxay ahayd mid aad u daalan, mabay arkayn waxa yaalla hareeraheeda, laakiin waxay aad u doonaysay qasnadda macdanta, markaas waxay bilowday inay doondoonto. aakhirtaankii bisadii aad bay u daashay, dabadeedna dhulka iska fadhiisatay meel ay ku taallo calaamad casi si ay ugu nasato. bisadii ayaa maskaxda iskala hadashoo tidhi, meeshan calaamaddu ku taallaa malaha waa halkii ay qasnaddu ku aasnayd. markaasay bilowday in ay qoddo halkii ay calaamadda casi ku taallay, tiiyoo awooddeedii dhan isticmaalaysa. intii ay qodaysay waxay si lama filaan ah ugu dhacday god ku yaallay dhulka. isla markiiba kolkay bisadii godkii ku dhacday, jiirka dhammaantii ayaa ku soo ururay godkii iyagoo xagga sare bisada ka soo eegaya. bisadii waxay tidhi, i caawiya, yaa i badbaadin karaa? miyir waxa uu yidhi, waxa aad maalmahan oo dhan samaynaysay wuxuu ahaa wax aad u xun. ficiladaadii xunxumaa ee aad galabsatay, iyadoo lagugu karbaashayo, waxaad godkan ku jiri doontaa inta noloshaada ka hadhay, adigoo ku dhibaatoon doona. bisadii waxay tidhi, markaa adiga waxaan oo dhan ka dambeeyey soo maaha? waxaan rumaystay wixii aad ii sheegtay, adiguna dabinka ayaad ii dhigtay, kuma dayn doona ee waa halkaad gashaa. miyir wuxuu yidhi, keligay ma aha ee annagoo dhan baa waxaan ka wada shaqaynay si aannu u soo gebagabayno dunuubtii aad gashay, bal in aad iminka garato qaladaadkaagii, wixii ka dambeeyana aad wax wanaagsan samayso. miyir iyo jiirarkii kale ayaa intay godkii dusha ka dabooleen ayay gurigii bangalada ahaa ku noqdeen. miyir ayaa jiirarkii oo dhan la hadlay oo ku yidhi, waa in aynu dahabka iyo macdanta oo dhan dib ugu celinaa dadkii lahaa ee laga soo xaday. jiirka dhammaantii ayaa isku raacay inay lacagta iyo macdantii oo dhan dib ugu celiyaan dadkii lahaa ee ku noolaa tuulada. jiirkiina waxay aakhirtaankii noqdeen kuwo xor ah oo faraxsan iyagoo ka raystay bisadii. waxay aad ugu riyaaqeen miyir oo lahaa qorshihii lagu qabtay bisadan xun. waxay madaxweyne ka dhigteen miyir si uu u hogaamiyo jiirka oo dhan, sababtoo ah wuxuu keenay caqli iyo go'aan wanaagsan.